وروميسناهاي خلاف باكشري وقتي دقيقة جيسك وصاحبة ذي وجه على ملك استيجوبه koox af ku dhisan ee waa koox ujeeddo midaysan ku dhisan dadkana maamul iyo de kala dambeyn bay leeyihiin waxaan ku wada joognaa waa sharci waxaan laygu bedelay waa sharci waxa maxaa haday hebel ku tagay waa sharci waxa ku tag hebel kale lagu dooran doona waa sharci waxa hebel kale ku tagi doona waa sharci hadday de kooxdii yiraahdeen ka baxna meesha maamul bay leedahay dadii laga saaray waa laga saaray balse waa isbedel dabeecadiisa ku yimid taasi xidigu maalan aaminsanahay hadday de kooxdii yiraahdeen ka baxna meesha maamul bay leedahay dadii laga saaray waa laga saaray dhinac kale hadaan ka eego maxamed saciid cabdi biike waa saaxiibkay waa fanaankaygii waxaan qabaa in maamul kooxda ka saaray aanu jirin waxaan qabaa xubno kooxda ka saaray inaanu jirin balse waxa ka saaray sharciga kooxda ee aan nimankaas ka hornimi ee arinta ay muhiim ka ahayd hal qodob buuha show baan ku leeyahay caawa Hargeysa Crown Hotel maalin bandhigistay hore waqti hore dibadna khilaaf yimi kooxdu waxay soo tagtay in showgi joojiyo waxaan ku yiri bulshadeedii waan u ballan qaaday in showga dhig sharciga kooxda waxa kamid ah kooxdu sidoo jira inay show u qaban karto balse aanu jirin shakhsi gaar u qaban sharciga xidigaha geeskana uma yaalo in fanaan kale show de aanu dhigan karin mana qabo kooxdu intay halka fadhiisato inay cod sharci darraa qof ku rido waxaanay ku jirayaan nidaam sharciya haddii qof ku soo harayo sharcigu gol yahayna qofkaas ku soo haray ha uu ku yaala sharciga horana uma arag nin intuu isa soo taagay ama gabadh isa soo taagtay kooxda kamid ah oo iskeed qabsatay taasi iyadna waxay ka qayb tahay waxyaabaha khilaafaadka kow talabaad markay sidaa noqotay maamulkii hore de Xasan Dhuxul waanu hambaleynayaa nin wanaagsan oo de kooxda meel fiican soo gaarsiiyay buu ahaa abwaan qaran buu ahaa heese uu leeyahay fara badanna waan qaadaa Soomaaliland sidii Cabdi Waraabo leedahay ayaan xidigaha Cabdi Waraabo hoogahay asaaskoodii baan ku suntanahay magacoogii baan ku suntanahay qof walba deyntu kala yimaado uu garanaya laakiin xeerkay saaxiibadaygu lahaayeen waajibkeedii waan maray inta kale de faamiliga ku dhameystiray miyaan khaldama waxaa jiray duruufo dhaqaale oo adkaa iyo duruufo siyaasadeed oo kooxda ruuxay kuwaas laakiin miidiyaha ma bixinay shawiyadii aan dhigay iyo hawshii u soo socotayna markab lacag la galama yimaado yiro xidigu jiraan oo magac yeeshaan oo muuqdaan oo mid ahaadaan waxa qayb ka ah oo oran kara 99% waxa ka ah waa sharciga maxamed saciid cabdi aad weydiisay waa fanaan saaxiibkaya kooxdan magac weyn ku leh kuna lahaan doona ka tegitaankiisu ma aha wax saameyn kooxdu keenay oo Axmed Weli Ibrahim Maxamuud Furun la ugu muhiimsan oo halbowlii kooxda duuca dhaqaaqo hadii waxa uu noqonayaa رين كتيرو برواق الرحمن ركتا ذكي الرحمن دوني ذا راحي الرين دوني ذا راحي الرين رين كتيرو برواق الرحمن ركتا ذكي الرحمن sharciga kooxda cidi kama weyna inay kooxda jirtaa ka muhiimsan inuu hebel muuqdo marka fanaan cod wanaagsan dhaysiga heesiisa yareeyaan isla mar ahaantaana ay taageeradii hore u hayeen fanaankaasi dadku siin waayaan macnaheedu ma aha codkii wanaagsanayay ku ogaayeen ba ka guuray balse waa isbedel dabeecadiisa ku yimid
yahay marka laga yimaado anagu tixgelina sharciga intii aan dhamayn karnana aan dhamayno laakiin sharciga naga weyn. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.